kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta falanqaynta warar kala duwan ayaa kasoo baxaya fadeexada dhaqaale ee la sheegay in lagu helay qaar ka mid a mas-uuliyiinta kubadda cagta Afrika. Wariye u dhashay wadankaasi Ghana oo lagu magacaabo Anis ayaa isagu waxa uu sameeyay baaris isla markaana uu ku guuleystay inuu sawirro ka qaado in ka badan 100 mas-uul oo kasoo jeeda wadamada Afrika kuwaas oo iyagu kala qaadanaya lacago laaluusha si markaasi